dadka nolosha ugu cidlada badan ama ugu kelinimada badani waa dadka ugu naxariista badan. Dadka ugu murugada badani waa dadka ugu dhoolla cadaynta badan. Dadka ugu dhaawacyada badan nolosha waa dadka ugu xikmadaha badan. Marka qofku uu keli noqdo ayuu gartaa naxariistu macnaha ay leedahay. Tana keenta in bini aadamka in badan uu la dhaqmayaba inuu naxariis kula dhaqmo, in xataa xaaladahooda hoose uu dareemo oo fahmo. dadka dunida ugu murugada badani waa dadka ugu dhoolla cadaynta badan, waayo murugada iyagu ay dareemayaan ma jecla inay dadka saameyn ku lahaato, inay dadka ku baarjilacsadaan. Dadka ugu adag nolosha waa dadka dhibaatooyinku ay soo maraan. Marka dhaawacyo badani noloshaada ay ku soo gaaraanna, caqligaagu waa meelaha uu ku kobco. qofku dhib kasta u yimaadaba xikmad gooniyu leeyahay. dhibaata markay kugu dhacdo waxbaad ka barataa, wax kasta oo aad ka baratidna waxay isu rogtaa xikmad, taasoo dad fara badan oo noloshaada ama ku yaqaana ama saaxiibadaaya ama bini aadamka kale daafaha adduunka joogin xataa ku aqooni u noqota mid ay ka faa'iidaystaan. haddaadna u fiirsatay dadka taariikhda ugu xikmadaha badan, ama mid laga soo guuriyey ha noqoto, ama mid ay iyagu meel ku qoreen ha noqoto, ama ha noolaadeen ama adduunyadan biyaysan inala joogin oo dhulka hoostiisa ha ku jireen, badankoodu waxay ka wada midoobayaan mid kasta oo ka midaba inay sheeko qaraar leeyihiin, in waxyaabo dhibaatooyina oo soo maray noloshooda bini aadamku marka ay dhagaystaana dhiirigelin u noqota inay leeyihiin. qofku markastoo dhibaatooyinku ay ku bataanba xikmadihiisu way bataan. qaabka uu wax u samaynayo, xirfadihiisu bini aadamka kale waa ka duwan yihiin. waxyaabaha keena dadku in ay ka duwanaadaan bulshada inteeda kale oo ay noqdaan xidig dadka ka dhex muuqata, waa marka uu rafaad wax u maro, waa marka uu nolosha meelo ka mida uu ku jabo. qof aan jabin noloshan waxba kama barto.